ومن مرينين إن دعسو إن وحن أو بن آدم ما أنت كسب حيان مردو بي بلاوته مقالوين كيريرا أو هذا مردو لا تمن سنة جذوه كو أساسنين به لكن خلق يكون ما شاء الله وعي إلهي مصلحة إذن سيو إلهي اسكوكين معانيو في من اسكيل عليها وحنا لجوا وقت السياسة dad badan baa isdaba mari doona dadka kala nooc waaye siyaasad way dhammaan waalidnimada hari marka waxay la dardaaran oo aan ku furi intaan programka gudagelin nafteeda waxay dardaarmi cabsi ilaahay number 2 maslaxa walaaltinimada ay ka weynaato siyaasi inta waa iga dardaaran oo aan bakay ka imaatay programkan gudageli wuxuu ku jihaysan yahay siyaasad ku salle mooshinyo canab oo horaan hore kursiga dumarka noo hayse haddana kursiga dumarka markay aragtay xaaladiisi uu yahay sababtay uga soo wareegtay oo MB5 uga soo wareegtay ilaa noo faafahin doonta si gudagalay ajendageeda iyo programka ayada wadata meeshan Soomaali badan oo walaala ku nool qaasatan waxa xoog badan laba saddex qoys oo wada dhasheen waa eeba iyo Maciya iyo Salax codsiga maanta wuxuu ku sareysan yahay laba qoys oo walaala ah Maciya iyo Salax yaa waxay codsi u wataan maanta oo soo qaadeen canab suubow walaalina eebeen ay codsadaan saddexda qoys markay ka baxdo arrinteed bay gudageli Soomaali weyn iyo islaamka kale iyo wixii kale oo kuura looga maarmeyn waxaan ku bilaabi sidii oo jadwalka uu kala baangeysan yahay qoyska ay ka dhalatay inay u furaan walaalahooda markii aan ka baxno Salax iyo Maciya haddana waxaan noo bilaabanay codsigii walaalaheena oo maanta aan u noqos ayagana codsadeen gaarse fadhi kula samaysatay codsiga ayagu ka imaade inay dhex imaato programyo ajendaal ay wataan oo meesha ay ugu shoog doonaan waa jiraan waxaan ku soo dhaweynay walaalkay Cabdiqaliin Guure alxamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd assalamu alaykum dadweynaha maanta halkan iskugu imaade aad aan u dareensanahay meeshan inuu cawda maanta ku idin leeyaan filayaa odayaal badan oo macruuf oo aan inta wajigooda ka arkaya dadkii raadciso iyo fadhigii aan wadanay iyo programka aan wadanay cid reeeba walaalaheen oo maanta ay marti u yihiin walaalahood reer Salax iyo reer Maciya codsiga ay wataan ay soo jeedsan doonaan ayaan halkan insha Allah ka bilaabaynaa waxaa kaloo halkan nala fadhaan dad kale walaalaheen oo cawdaaqe oo ka soo kaceen daafaha dhiciso halkanna fadhiyaan walaalaheen waxaan leenahay soo dhawaada cawda waad nala dhegaysanaysiin idinka laftirkiin waxaa kaloo marti oo hadda meesha nala fadhiya niman kale oo walaalaheen ah oo la yiraahdo qoys yaa garan la yiraahdo Ashraaf qoyska Ashraaf la yiraahday ee ree awaayeen dhaqaanteen ee bariga adduunka oo qumanaa culimada la ixtiraami jiray dadkii laga ducada laga qaadan jiray ee maaragtay dadku u duceyn jireen dadkina dad kamid ah hatta halkan fadhiya fursad baana siini doonaan wayna hadli doonaan maanta wayna duceeyni doonaan insha Allah ducadooda Ilaahay ma aqbal ha nooga dhigo horta soo dhawaada waqtiga aad noogu yar cariiri isaan arkayo dadkana saaka meel dheer baa laga soo kala lehe waqtigu uu iskeer yahay qofkii fursad aan siino waxaan aad u codsanaynaa warka inuu soo gaabiyo oo maarta 2 iyo 3 qodob oo muhiim intuu ku dhufto sifo aan salaadina aan u tukano qadadeena aan oo qayb qaadano waqti badan ma haysano inta waa codsi aan sheegayno oo soo jeedinayno marka arintaas ayada aan hor u sii guda galno barnaamijkii waxaan jecelnahay inaan sii bilaabano insha Allah waxaan u horeysiinaynaa maarta walaalaheen reer Salaxayeen 2 iyo 3 qof iyo ka siin doonaa ka dambana walaalaheen reer Maciya ayagana inta in la ka siin doonaa rag badan oo odayaal culamaa u diin badan baa meesha fadhiyaan sheekheena Sheekh Boqor awaaka inta fadhiyo laakiin shirku noo soo xiri doona Sheekh Boqor insha Allah gadaal dambe noo soo xiri doona odayaasha kale waa ka siin waayelada Sheekh waxaa ka siin odayaasha kale waa ku ayaga noo fadhiyaan kulligoodu ayagana way noo duceyn doonaan insha Allah fursadooda waan siin doonaa waqtigooda waan siin doonaa waana soo gaari doonaa meesha maanta waxaa la soo imaaday waxaa la siyaasadna maanta shaaqooda ma joogto waxaa joogta Haaruun Salax iyo Maciya oo meesha uu ku dun yahay marka waxaa weeye maanta waxaan u nimaadnay waakan qoysku aad la dhihi jiray maanta inaan una martaqaado oo la macsuumay arrintan waxaa weeye Haaruun baa wataa Salax iyo Maciya way wataan Salax iyo Maciya ay imaadeen arrinta raagooda way ka weyn tahay waxaan kaloo idin sheegi
waxaan waa siyaasad dhib ma jiro xumaan ma jirto dagaal ma jiro dad waa laba gurub bes wax kaloo sadexeeya ma jiro waxaad ogaataan waxaan ogahay siyaasad dhaqan shaqa kuma leh siyaasadna waxaa weeye nin iyo naagtiisa laba qof kala doortaan waa iska shaqa siyaasad waay wax oo xumaani iyo wax oo ujeeddada yahay midna ma aha waxaan ii sheegaynaa oo ku soo dhawaanaysaan raaaadow waad mahadsan tihiin waadna macsuunteen waadna soo ajiibnay waad ku mahadsan tihiin meelasaan uu ku yahay meeshan aadna u mahadsan tihiin waxaad ogaataan meeshan waa uogaa gurub ujeedana male qabiil male ween male waxaa waa iska siyaasada waad mahadsan tihiin waad mahadsan tihiin waad mahadsan tihiin waxaan rabnaa eedow waxaan wadanaa nolosha wiilaa canab baan wadanaa waxaanu ka codsanaynaa inaan nala qaadi walaalayaalow iyo aad ka codsanaynaa waad mahadsantihiin رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إله كنا هذينا سبحانه وتعالى إله بريقا يا خيركم يا وناكم نسي إله كنا هذينا سبحانه وتعالى مع ديال كلمة إله رسولنا سبحانه وتعالى إله كنا هذينا بعد يوم محمد علينا ذكر عيسى من تميسن صح حاضرين سلام قيمنا بدنوا الموضوع من معزومين ميسن يعني يوم محمد علينا دمركا يعرياشا يدل ورد إذولكم مركا حاضرين يسين هيد عيسى يعوض قوح كرون ميسن جوروا هارون صدح دي سنة فايدنا تميسن الكل دليين waxaanu wadanaa oo codsi aan u wadanaa beesha reeeeba codsiga aan u wadano waxaa waay gabadha canab suubowe ee gamarka afaafka u tartamayso in waxay ahaaday aad nala qaadiin oo weliba si fiican aad nala qaadiin annaga waan soo qaadne dadna looma dhammaani karo wuu jiraa dad naga maqan laakiin meeshan hadda maanta raahar wuu ku idin yahay marka gabadha annaga waan soo qaadne haddii aan nahay labada lafood ee kale beesha mceeye iyo beesha reer saalax raa-eedana waxaan codsi u wadanaa maanta waxaana idinka codsanaynaa inaad gabadha nala qaadiin sida annaga aan u soo qaadne marka arrinta idinkuma badinaye intaasaan ooga bixi wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi calaykum السلام عليكم عالم راجع عيسو واد ما سنتين أنا ما بديناي واد أركي سلمات دad aan weligiis imaan baxan maad weligiis ma siyaasad goob ku hadlay maanta waa la soo kacay waxa male maanta waa la soo kacay ولي جاوب تنسوا استاك بعدنا أغلب ميل لكن واسف في سنجري لكن ما تبعي سوك ياجرا ما توهر ماله نمبر بو سوك عي هذا عيسو وما ستين ولا سودا يسير عنبان وضنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنتم ناس أخوي ما تقدم بسلام هيا. waxaa waa lii dhiibay aniga nin oday oo cumri joogo oo weliba hadalka aad u toosinaynin baan ahay laakiin inta ilaahay idin kala siiyen baan ka hadli horta waxaan dooranay gafana baan dooranay baarlamaan baan dooranay muumin reer baan dooranay konsol baan dooranay intaba hadda ilaahay la waayo meeshan aan joogna ilaahay baan inta waan dooranay oo lillahi baan u dooranay anan way noo imaatay inta dadkii aan dooranayna wax hadda la saddex noo imaaday gabadhan baa jirta hadda la saddex wax noo imaaday laba goor bay noo imaatay marka hadda maashada ka horreysay ilaahay baa ugu maqla hadalkaa waxaa bejarkeeda jeerkeeda ka soo bixiyey waxaan idhi
أنا ذي أنا كنت دارتي ولله كله برهت فيري وعليه أنا كنت دارتي ولله أنا كنت دارتي فيري وجاب كان كويس أنت يا أنت أنا دك الدوري وحكاك قاطع حفيزة وتتجمع هين وإلهي يسيب أن كوكا أحسنها وإلهي يسيب وحاسمان بهيستعملوا دك مدة وجلي هذا البوان كنت دارته وحسيب منه حفيزة دك وهمتي لكن بدي جيتهم ما كهل نحاول من باي وحنا هاي أنا وراك هي العربان وراك هي اللي العربان واحد dadka waxaa ali binu gafanaan noo ali binu waxaa yidhi cali tire cali haddaan ilaahay loo cali ka dare waxaa yidhi hadhaho waxaa kulli ilaahay loogu soo celiyaa cali maxaa waxyaabo badan oo lagu mahdiyaa jirta baan aan ruuxay gabadhan haddaan saddex intay noo imaatay waxay noo keento wax noo keento hadda wayna nasoo fiirisay soo maaho انت سيتو هذا انت انت افرت مسؤول روح مسؤول في النصائر كذا هذا كل جتا كورها هو عرف يجملك عرف وين هذا الهي ودين او عرف ومكسور قابل هذا عرف كذا ودين انك سيده قبل ان من عينه ايدنا كمان ضمنه maxaa yeelay intii noo imaatay oo dhan baaba haddaa ilaahay la waayo noqosho aan ka waynay inaaba nasoo fiirinayso waxay noo keentaba haddaa ilaahay la waayo kafeetada noo keentay haamaha noo keentay waa sida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhiciso aniga waxaana ismaaciil faarax dadka hadduu hadlo afar eray unbuu mid ku hadlaa inuu faano inuu injibaado qof u dhaarto inuu baryootamo iyo edalada waa kuwaas oo kale annagaa waxaan nahay dad walaalihiin oo idiin imaade dhiciso annaga walaalahayna ay degan yihiin haddana marti baan u nahay ayad marka horta qofka gurigiisa aad imaato marti unbaad u tahay walaal kasta aada oota waad na soo dhaweysayna ilaahay wax khayr badan oo ka wanaagsan wax walba allah ni keeno dadka ku noolna allah ammaansado taa dhicisaan leeyahay dad hadduu walaalo yahay oo isku imaado wax hadduu doonaayo wixii uu doonayo inuu helo unbuu rabaa annaga dad walaalo idii imaado walaalihiinaa nahay wax baanan raadinaynaa gabadha canab suubow baan wadnaa ani ahaanna aadaa liigu xantaayo canab baad waddaa wakti kastaba yaa lii dhahaa laakiin ha noqotee bini aadanka waad un fiirini rag iyo dumar kala ma leh roog xasuus leh ama naxdin baloo kuu nixi yaa ilaah baa kore in la wadayayta ma aha rag baan iska wadi war walaalayaala waxaan idinku imaanay waxay meeshan joogo oo islaam ah oo kuuraha faafi haastoo meeshan degan markaan hoos u soo daadegana haaruun baan u soconnay maanta intaasoo dhanna waan u soconnaa oo kuura waxay haasto gabadha kuuraha noogu rido walaalayaal oo idinkoo dhan baa idiin baryaynaa haaruun baan haddana u soo degayaa haaruun gabadha wuu ku idin yahay waan wadnaa laba ruux wuxuu yidhaha gar kama wada qoslinayso gabadhaa iyo wiil baa idla socdaan oo haaruun ah gar inay kama wada qoslinayso haddi qof in loo bato unbay ahaani oo kuuraha loo rido gambarkana maanta waan u baahan nahay eegow adaanan kuu soconnaa maanta gambarka sidii gabadhaa annaga aan u soo qaadno aan idinku martinnahay inaad nagula qaado unbaan rabnaa walaalayaalow wallaahi wabarakaatu walaalayaal waa idin salaamay marka ugu horrayso marka labaad dad codsi aan wadannaa codsi baan wadannaa codsiga aan wadno walaalaheenna aan wadannaa gabadhaas canab ayaa wadnaa reer dhiciso gabadhaasaan rabnaa inaan nala qaadaan kaas ahaan qoyska walaalaheena reeba annagoo waxaa wadannaa saalax iyo niciye ah walaalayaal codsigaas walaalkan wax waa laga baryaa hebelow imaad codsane waa lisdhihi karaa codsigaasaa walaalayaa wadannaa ninkaan ay ka sayid cabdirashiid cali maxamuud sheekh baa la yidhahda qoyska reer wacis reer beyle aan ka socdaa marka intaas waa ii salaamay sheekadana intaasaa looga baxay
ودين وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رادي عيسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتدى شرفت علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baad u mahadsantihiin dhammaan dadka ka soo qayb galay meeshan. aniga meel intaan ka imaado sacaan la jira saake ee dhacisaan ah afkii dhacisaan ku hadlay ma ogi hadda afkii martida inta badan dhinacba borogaraamkii iga yar ahaa laakiin labada dhinacba haddaan isku darsado soo dhawaada martida sharafta leh anagoo reer dhacisee waan aad baan idiin soo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay waxyar haddee nin oday haddii la yidho hadal oo maaragtay meel fagaaro la joojiyo waxan buu waa laazima inuu waxyaalo badan iska yar ka hahadlo intaanan reebtigay dhammaan aan lagu wareejinin waxaan isleeyahay borogaraamka hadda gabadhan canab iyo saalax yacquub waa laba nin oo ilmo adeer ah laba qof oo ilmo adeer oo walaala weeyaan annaga berigii aan ka tartami jirna meeshan kolley borogaraamka waa la wada socotiin inkastoo marti badan ay joogto oo cawdaaq uu joogo meeshan la arka talamuga inay wada joogaan markaan ka hadlahayo arrintii reer haarun tawfiiq baan ku wadi jirna waagii hore annaga talada ayna joogtin reer haarun mid buu ahaan jiray dhinacoobaa loo wada socon jiray haddee wax la helay haddee wax la gafaba waxaad moodaa hadda taladii dad wax magarada ee gacanta u gashay wax badan baan isku daynay inay maaragtay tawfiiq la helo oo la wada hadlo oo si walaalimee wax loo wada doonto kolley ani hadda waxaan ka xumahay shaksi ahaan laba walaalo wada dhalatay inay waddadan isku fiijiyaan mar kasta oo ay wax isla doonan hayaan waxa ay doonan hayaana aan garani adeegiisa oo igu soo orod ma aha marka markii runtii laga hadlo odayaashii u talinayeen reer haaruun wax badan bay haleeyeen wax badan baan isku daynay si maslaxa eh in arrintii lagu galo oo wadajir wax loo gooyo kuuraha loo jaro kibaanada loo jaro caawadaaq wadajir loo baryo talamuga loo baryo ogaadeen sidii ay ahaan jirtay aan wax raalin jirnay aan u doonano laakiin waxaad moodaa inay waxoogaa maaragtay nin walba meeshii u joogo uu isbiday xoog iyo asaga talada inuu hayo marka waxaan marka u hore idinka codsanayaa maadaama la waayay tawfiiqdii waxaa waye nin walba nasiibkiisa ay noqotay hadda meeshana cawdaaq badan baa ordahaya dadka cawdaaqna intan way wada dhexaysaa ma aha in qasab ay tahay reer fulaan baan ahay ani reer fulaan keli yaan doorani cawdaaq kurihiina wuu u wada dhexeeya ku kalaa beri imaani ku kalaa ka daba imaani idinka waxaan idinka baryaynaa reer dhiciso iyo haddaad tihiin dadka jiidan degan si walaalimee sharaf leh inaad u soo dhaweysaan kuwiinana idigu gacantiin ku jira anaga hadda maartan waxaan ka hadlayaa gabadha canab walaalnimadii laga rabay inay reer haaruun lagu kala mideeyo odayaashii baa diiday marka maadaama walaalnimada la diiday hadda qasab ay ugu noqotay inaan canab aniga waddadan hadda aan maanta fagaarahan soo istaago marka waxaan idinka codsanayaa reeabtigay iyo cawdaaq iyo talamugaha halkan joogaba gabadhaas agoonta inaad soo gelisaan gabadhaa inayna dhicin wax badan baan ka hadla ana waxaan eray kolley haddaan ruux daba istaago ma rabi inaan soo noqdo ana wax la-aan waxaa ii fiican baan eri duurkayga inaan iskaga jiro sacigayga raacdo marka maanta waxaan ka hadlayaa gabadhaas maslaxadeeda hala fiiriyo kuuraheeda waxaad ku talaysiin kuura way kaarkaa yara gacantiina ku jira way lacag idinkama rabto xoolana idinkama rabto ariga lootaan idinkama rabto waxay halkan uu idinku imaatay waxaa weye kuurahayna inaad siisaan marka waxaan khaasatan reeabtigay halkan joogo
anoo reedhicso afkeeda ku hadlay hadda gabadha waa qaateen meela qaadeen ma qaateen reeciso mise waxbaa jira talamaan iskugu noqonayna okay middaa waxaan filayaa waa okay bismillahi raxmaani raxiim dadweynaha sharafta leh ee noo imaaday maanta meeshan dhiciso noogu imaaday sharafta leh iyo muxushmuha canab subow waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah waxaa maanta iska leh intii maanta ilaahaygii meeshan isku kan keenay ee intanoo islaam ah uu iskugu keenay waxaan sheegayaa canab subow maanta ma aho keligeed maalinta imaatay maalin baa ka horreysay maanta oguma horreyso meeshan maalinta horreysay sidan oo kale aan u qaabilnay si sharaf leh yaan u dhisne ilaahay wuu nagu guuleeye waxaan doonaynaa waa helne iyo gabadha xushmada leh ee noo imaatay ee walaasheenada ee gabadheennada ee salaamu calaykum horta eebtaa allah asturo tolka ku watana ilaahay idinkii muwaafaqa tolka anaga allah ka wada dhigo gabadhaydi shalay aan ahayd baana tahay gabadh sidii shalay gabadhay u ahayd ma haddana u tahay tolka uu sharaf laha kuga socdaa haaruun sheekh ninka miito maxaa weeye cabdi sheekh alif eedaasna waa waxa qaadana waa kula qaaday eedda aan sheegtana meesha ku jirtaa waa inaa waata maanta maxaan nii sheegaynaa anag ree-eeda haddaano laakiin aan rag libaaxyaa maanta usoo guntooyen gabadha cabdiraxmaan soo qorna muxuu nii sheegay maanta ini geeyaan rag u ismarinayin anag kuuraanii haynaha dhibaatadayna waa dhibaatada wiilashaa ka dhawaajiyeen meesha maxaan ka rabnaa dad madax oo ree-eede dan reedhicse maxaanay gabadha meeshan joogto mar horaan soo dooranne maxay ku jirtaa dawladday ku jirtaa wixii aan rabna maanta inay nala qabato hadday nala tiro waa nila qabani kuura waan siinaynaa wixii baahida aan qabna hadday gaan sheego hadday tiro wax baan ka qabani haa kuura waan siinaynaa hadday nala qabani waaso maxaan kalagaas ku sheegaynaa midda duqowda ay sheegan way meeshan location inay nooga dhigto oo labadii jiife la sheega degdeg aan ku helnay intay ku jirto dawladda ay ku jirto yaan ka codsanayna iyadana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hawshana way dhammaatay si fiican bay ku dhammaatay wax si fiican ku dhammaaday suxul in lagu bedelo ma fiicno meesha waxaa u malaynay dadka ree eeba ruux ani iga weyno meesha imaaday maanta ma jiro marka waxaa la rabaa egan insha allahu hawsha way fiicnaato waan duceysanaynaa inta la sheegay ee muxuu ahaa dhibaato ana waa maqlaysa marka egan waxaa weye waxaan ku soo dhaweynaa muxuu ahaa anad